waxaa jira hadda warar sheegaya mararka qaar inuu jiro tarar ama dilaac dhex maraya Soomaaliya iyo Itoobiya arrintan maxaa lagu ogyahay arrintaas waa arrinta hadda aan tilmaamayni oo waqtiga casriga ah socoto way adduunyada sideedaba waa blockyo plates allaha plateyadaas waa dhaqdhaqaaqan waa socdaan waa qayb ka mid ah adkaha dhulka hoos mantalka ah iyo adkaha kale karastiga la dhaho waxay dul sabeynayaan mantal iyo koorka dhulka ubucdiisa oo dareerayaal ah ubucda hoose ee gudaha ku jirtana waa adke oo bir inaykal ka samaysan oo xadiid ka samaysan marka qaaradda Afrika aad u jeedid kulligeed waxay dul sabeynaysaa waa hal plate marka waxaan loo yaqaanaa plate tectonics in dhul gariir uu dhaco in tsunami uu dhaco in vulkaano ay samaysanto in trenches godad aad iyo aad u dhaadheer badda salkeeda ay ka samaysmaan waxyaabaha soo in buura ay samaysmaan waxa soo idin waxa xukumaaya waxaan hadda aan sheegayno plate tectonics kala dhaho ayaa xukumaaya saxan dul saaranahay marka saxan dul saaranahay plate allah plate tectonics saxankaas aad dul saaranahay saxanka ka meesha iska taabanayeen markii wax yar isheerdiyaan dhul gariira dhacayo mararka qaar meesha iska taabanayeen vulkaaniyaal waxa ka qarxaya mararka qaar markay istaabtaamida kor soo kacaya badda biyaheeda kor loo soo qaadaa hir 100 mitir ah ama 150 mitir oo socdo oo tsunami loo dhaho ayaa xeebaha ku imaanaya waxa soo idil waxa xukumaaya in arrimahan ayaa xukumaaya marka dilaacan maxaa ka ognaa engineer dilaacan marka geeska Afrika ka socdo oo loo yaqaano Rift Valley the Great African Rift Valley allaha ان ودلاع وقتها العصري هذا ان نولنahay socdo wuxuu ka soo baxaa dhulka cafarto ka soo baxaa asagoo triangle amal ah wuxuu maraa Itoobiya dhaxjeexa annaga Soomaaliya waxa naga qusayso in dooxadan loo yaqaano dooxada in riftiga oo hadda city gobolka city meesha lagu diraa cafartii Soomaalida isku haystaan ayaamahan meeshaas ku aadan tahay dhulka marka soo baxdid Addis Ababa ka soo baxdid oo aad timaadid Nazareth aad soo martid dhulka hal jeer u dega marka dambe waxa arkaysaa meel yar oo webi u eg webigaas waa bad samaysmayso way hadda waa kala fuqaysa marka Soomaaliya waxa kala fuqi doono Itoobiya qaybaheeda galbeedka ah qaybo badan oo Itoobiyaanka kamid ah dhulka Oromada ahna Soomaaliya soo raaci doonaan marka la fiiriyo laakiin milyan yar kadib aan ka leeyahay waxa laga hadlaa hadda 5 ilaa 10 milyan sano sano kadib hadda waa yar tahay waa waqti aad u yar 5 ilaa 10 milyan sano Soomaaliya waa ka go'aysaa Soomaaliya oo qayb kamid ah Kenya wadato oo qayb kamid ah Tanzania wadato oo qayb kamid ah Mozambique wadata